Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarteena sharafta leh ee ku xiran kanaalkeena Bar of English. Waxaa idinla hadlaya anigoo ah Zakari Maxamed. Cashirkeeni maanta waa cashirkeenii 12aad. Wuxuuna ku saabsan yahay qaabkan u tilmaami lahayn wax inoo muuqda ama aragno. Qaabkan ugu tilmaami lahayn qof inala taagan ama inala arkayo waxaan tilmaami doonaa insha Allah. intaynan cashirkan ku bilaabin fadlan waxaan idinka codsanaynaa haddaan naga cusub tahay subscribe, share, like si anagana u noqoto dhiirigelin aadna aad uga faa'iidaysato muuqaaladeena ugu dambeeya aan soo gelino mahadsanid. sidaan soo sheegayba cashirkeeni maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa qaabka ugu tilmaami lahayn ama u muujin lahayn ama qof kale ugu sheegi lahayn wax inoo muuqda ama aan maqalno. qaybtan kor waxaa inoogu qoran faahfaahin yar oo cashirkan maanta inoo sharxaya. waxayna leeyihiin use isticmaal kelmadda is and are with the word there to say what you can see and hear. waxaa isticmaashaa is iyo are adigoo la isticmaalaysid kelimadan there si ugu muujisid wax maqli kartid ama arki kartid. waxa arki kartid maxaa ka mid ah wax meel saaran, wax meel ku dhagan, wax meel ku jiro, waxyaabahaas oo kale. markii shayga aad tilmaamaysid hal shay uu yahay isticmaal there is. there is waxaa inoogu qoran halka faahfaahinteeda when you are talking about one thing, marka ka hadlaysid hal shay. dhankan kaleetana waxaa inoogu qoran ayadana markaan tilmaamayno hal shay iyo wixii ka badan. hal iyo wixii ka badan waxaa isticmaalaysaa there are. faahfaahinteedan waxay leedahay when you are talking about more than one thing, marka ka hadlaysid hal shay iyo wixii ka badan. marka cashirkeen maanta waa sidaas. waxaan ku tilmaamaynaa waxaan maqli karno ama aan arki karno. waxaa filaa intaan faahfaahinta yar intaa fahanteen intaynan guda galin cashirkeeni qeybihiisa dambe. marka waa soo fahanay qeybtiina hore aan kusoo sharaxnay. cashirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay marka halkan waxaa uga baahannahay inaan kusoo bandhigno tusaalooyinkeena oo ilaa 10 gaarayaan. marka midda koowaad waa tan. waxayna leedahay there are 2 chairs in my kitchen. there are 2 chairs in my kitchen. marka there are waxaa jiro ama waxaa ku jira ama waxaa yaala ay u dhigantaa 2 chairs, laba kursi. chairs waa kuraas. chair kaligeed waa kursi, chairs kuraas. kitchen waa jiko. there are 2 chairs in my kitchen. waxaa jikada ii yaala laba kursi. waxaa jikada ii yaala laba kursi. there are 2 chairs in my kitchen. waxaa jikada ii yaala laba kursi. dhankan kaleetana ayadana waa tusaalihii labaad. tusaalihii labaad asagana wuxuuna leeyahay sida tan there are 5 girls in the photo. there are 5 girls in the photo. sawirka waxaa ku jira 5 gabdhood. sawirka waxaa ku jira 5 gabdhood. there are waxaa ku jira 5 girls 5 gabdhood in the photo sawirka. tusaalaha saddexaad there is waa hal somaha. there is hal shay markaan tilmaamayno. there is a window in the bedroom. there is a window in the bedroom. xusuusna eedan halka inoogu qoran waxay ka hadlaysaa singular noun. nounka markuu keli yahay waxaa u baahannahay inaan ka hormarsiino midkooda a or an. sababta ugu hormarsiino waxay tahay waxaa fiirinaynaa xaraf uu ka bilaabanayo inuu consonant yahay ama inuu vowel yahay. sababta labaad a or an aan ka hormarsiinayno waxay tahay waxay inoo muujinaysaa inaan ka hadlayno hal shay. hal shay ama hal qof ama hal noun. noun guud ahaan waa taqaanaan sarajina insha Allah. cashiradeen ugu horeeyo kusoo arki kartaa hadduu lahaydmo. there is a window in the bedroom. daaqad ayaa ku taala qolka hurdada. daaqad ayaa ku taala qolka hurdada. bedroom waa qolka hurdada. window waa daaqad. tusaalaha afraad is there waa su'aal. markaa su'aal ka samaynaysid isdabamari.
ista soo hormari ama arta soo hormari, there dib u dhig. waa su-aal qaabka u samayn lahayd. Is there any water in the glass? Is there any water in the glass? Any waa wax uun markaad tilmaamaysid. Glassna waa glasska caadiga biyaha lagu cabo. biyo miyaa ku jira glasska? biyo miyaa ku jira glasska? Is there any water in the glass? biyo miyaa ku jira glasska? waxaan rajeynayaa inaan isla soconno insha allah, si fiican iskula soconno oo waxaan sharxaya fahmaysaan. Okay, midda shanaad. There is a lamp on my desk. There is a lamp on my desk. halkan waa su-aal haddaa ka dhiganaysid isdaba mari uun. Is there a lamp? Is there a lamp aa leedahay, laakiin hadda waa qoraal iska caadi ah oo affirmative ah. There is a lamp on my desk. Desk waxaa la lahaa miis. miisaska waxaa lagu bartaa waxaa la lahaa desk. desk iyo table labay kala yihiin. table waa kuwa cuntada iyo kuwan yaryarka koobabkii waxaas la saarto, laakiin desk waa kuwa wax lagu barto oo laga yaabo inay qaanada lahaadaan iyo waxyaabahaas oo kale ama locker. There is a lamp on my desk. miiskayga waxaa saaran laambad. lamp waa laambad. laambad wax lagu akhrista laga wadaa. miiskayga waxaa saaran laambad. midda lixaad ama number 6 waa mid diidma ah. not waa diidma ah. waa sentence ama jumlo diidma ah. waxaan rajeynayaa in erayadan ama qoraalada halkan kusoo bandhigayo mid uun iska qoran ama iska sharaxa keliya ha naqdaa mid mar walba practice garaynaysid oo isticmaalaysid marka shay mis dul saaran ama shay aad aragtid ama maqashid markaad tilmaamaysid isticmaal. There is a pen on the table, or there is a pen on the desk, or there is a chair in the room. qaabkaas isticmaal, jumladahaas isticmaal, practice garay. kaliya naqan wax meel uun ku qoran hadhow wax micnaa ma soo kordhinayso inaad mar walba dhageysatid ama qortid iska dawashid. wax micnaa kuma soo kordhinayso. muhiimadda waa inaad isticmaashid. Okay, number 6. There is not a mirror in my bathroom. There is not a mirror in my bathroom. Mirror waa miraayad. mirror waa miraayad. bathroom waxaa la dhahaa musqusha ama suulida. bathroom. Okay, halkan su-aal waa ka dhigan kartaa directed. Is there not a mirror in my bathroom? su-aal ay noqonaysaa markaas. isdaba mari labadan markaas su-aal samaynaysid. laakiin hadda waa qoraal ama sentence ka caadi ah ama si kale haddaan u dhigo affirmative ah. There is not a mirror in my bathroom. musqushayda ma lahan muraayad. musqushayda ma lahan muraayad. mirror waa muraayad. Okay, midda toddobaad. There are not 2 wardrobes in the room. There are not 2 wardrobes in the room. kuma jiraan 2 armaajood qolka. wardrobes waxaa la armaajo laba markay yihiin. wardrobe waa hal armaajo. wardrobes waa markay laba yihiin. There are not 2 wardrobes in the room. kuma jiraan 2 armaajood qolka. room waa qolka. waa qoraal ama mid jamac ah oo haddana diidma ah. r soo ma aragtid. midda 8. How many birds are there on the tree? birds waa shimbiro. bird kaligeed waa shimbir. birds shimbiro. how many imisa. how many waa imisa. tira la isweydiinaya. how many birds are there on the tree? tree waa geed. imisa shimbirood baa saaran geedka dushiisa. imisa shimbirood baa saaran geedka dushiisa. how many birds are there on the tree? imisa shimbirood baa saaran geedka dushiisa. Okay, number 9 ama lambarka 9aad ama jumlada 9aad oo tusaalaheena ugu talagalay inaan ku barano erayadan ayaan isticmaalayna maanta. Is there an apple in the school bag? Is there an apple? apple waa tufaax. waa hal tufaax. an soo ma aragtid waa soo sheegay cashirkan waan kusoo sheegay. or an waxaan fiirinaynaa ama goorta isticmaalayna waxay ku xiran tahay hadduu nounkaas ka bilaabanayo xaraf consonant ah ama vowel ah ama xaraf shaqal ah ama shibana ah.
sidoo kale waxay noo muujinaysaa inaan ka hadlayno hal shay. An apple waa xabad tufaax ah. Is there an apple in the school bag? School bag waa boorsada iskuulka. School bag waa boorsada iskuulka. Is there an apple in the school bag? Boorsada ma ku jiraa tufaax ama xabad tufaax ma ku jirtaa boorsada iskuulka gudihiisa? xabad tufaax ay ma ku jirtaa? cashirkeena maanta intaas inoogu egyahay. inoo cashirka xiga intiinaan ku kulmeyno muuqaalka xiga waxaa idinkaga tagay khayr iyo barwaaqo. adinkana ha inaga ilaabina inaad subscribe share like noo saartaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.